ninkan lagu magacaabo Rishi Kapoor wuxuu ahaa aktar caan ka ahaa dalka Hindiya isla markaana filimaan badan uu jilay Soomaalidu aad ay u garan ogtahay maanta khamiis ahayd ayuu ku geeriyooday dalka Hindiya wuxuu ahaa 67 sano jir wuxuu magac iyo maalba ka sameeyay ka shaqeynta aflaanta Hindiga isla markaana wuxuu ka tirsanaa shirkadda Bollywoodka waxa dadka yaqaanay ninkan ay sheegaan inuu ahaa nin wanaagsan dadkana u irxami jiray Ranbir Kapoor oo aabbaha dhalay labada atriisho ee Hindiya caanka ka ah Karishma Kapoor iyo waliba Kareena Kapoor isla markaana ay walaalo ahaayeen Rishi Kapoor ayaa xaqiijiyay geerida walaalkiis waxa la sheegay in cudurka kansarka uu u dhintay Rishi Kapoor kaas oo muddooyinkii dambe cusbitaal ku yaalay magaalada Mumbai lagu dabiibayay sanadkii 1980 ayuu guursaday xaaskiisii Neetu Sen iyadoo ay isku dhaleen laba ciyaala oo kala ah Ridhima Kapoor oo ah gabar iyo wiilka atooraha isagana noqday ee Ranbir Kapoor aktarka caanka ah ee dalka Hindiya aadka looga qadariyo Amitabh Bachchan Soomaalidana ay u taqaan Cali Dheere ayaa yiri kadib geeridiisa markii ay gaartay Rishi Kapoor waan burburay oo uu la jeeday nin qaali ahaa in uu ka baxay dalka Hindiya iyo shirkadda Bollywoodka shalay waxa isagana dhintay Irfan Khan kaas oo cudurka kansarka isna u xijaabtay waxay 2 maalmood gudaheed Hindiya weysay halyeeyadii filmaanta Hindiya qaarkood kuwoodii lagu tixgelin jiray दिल देने की रुत आई